جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي iyadana waxaa ka timid gabar walaalaha kamid ahaa qolka ay ku xiran tahay waxaana tiri sheekha aad baan u salaamay waana dhegeysanaya sheekh gabadhan waa gabar dhalinyaro ah iyadana aad bay murugaysan tahay waxay leedahay sheekh waxaan ahay gabar aad u da'yar wiil baa in muddo sheekeysanayne anagoo wada sheekeysanayno ayaa qalad naga dhacay waxay tiri uur baan qaaday uurkii markaan qaaday kadib wiilkii wuxuu igula taliyay inaan ilmaha iska soo tuuro anigana gabar dhalinyaro ayaan iska ahaa isagana dhalinyaro sideeda oo kale uurkii baan dhakhtar u tagay waa la iga soo xaaqabay tiri ilmihii hadda arrintii aad bay murugo weyn igu haysaa mar walbana waan ka murugoodaa ilaahay subxaana watacaalana toobad ayaan weydiistay marka waxay leedahay wiilkii magaalo ayaan wadegnaan jirnay magaaladii waan ka tegay magaalo kale ayuu degan yahay hadda anigana magaalo kale ayaan deganahay wiilkii weli wiila soo xiriira haddana wuxuu leeyahay waa ku guursan rabaa qaladkii hore iga dhacay qalad dhalinyaronima noo geysatay hatta laakiin inaan ku guursada ayaan rabaa anigana arrintiiba mar walba qalbigayga kusoo noqotaa sheekhow maxaa igula talinaysaa arrintaas isagiina wuxuu leeyahay waan isbedele salaadana waan tukadaa buu leeyahay oo wixii waan ka baxay maxaa nagula talinaysaa bay leedahay gabadhan yar noona soo ducay bay leedahay falyatafadal mashkuura wamajuura sheekhuna الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله marka koobaad ilaahay waxaan gacmaha ugu taaganaynaa tabaaraka wa tacaala inuu ummadan muslimiinta ah ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu dawlad muslima oo ilaahay kitaabkiisa ku dhaqmaysa oo ilaahay kitaabkiisa ku xukumaysa oo fasahaadka yaraynaysa oo fasahaadka la dagaalamaysa oo wanaagga dadka amraysa oo xumaanta dadka ka reebaysa oo cizada iyo sharaftii muslimiintu ay lahaayeen u soo celisa ayaan horta ilaahay u weydiinayaa ummadda muslimiinta ameenay joogaanba maxaa yeelay sidii aan horay u sheegnay hadda ka hor kelime aan ka soo guurinay maxaa la yidhahdaa iikeen alimaamu shaafici raximahu allahu tabaaraka wa tacaala ayaa waxaanu nidhi taxduthu lilummati min alaqdiyati biqadri maa yuxdithuuna min alfujuur mararka qaarkood ummadda dhexdeeda waxaa ku yimaada qadiyaadka lagu weydiinayo mararka qaarkood waa biqadri maa yuxdithuuna min alfujuur yacni fujuurka iyo dhibka la samaynayaay yacni hasba xajmigeedu intuu dhan yahay ayay mar walbana musiibadu ay la ekaataa gabadh dhalinyaro abaaha nin baanu isguursanaynay qaabka laysu shukaansanayo iyo qaabka khalwada layskugu noqonayo iyo qaabka marka horeba akhlaaq xumada ah ee laysu xidhiidhayo ayaa waxaan horta marka hore sababa waa in dhalinyaradeenna la baro marka koowaad hooyooyinka iyo aabbayaashuna waa inay baraan mucallimiintuna waa inay baraan war gabadhaadi oo soo qaangaadhay intayna soo qaangaarinba horta maxaa u banaan maxaan u banaanayn xidhiidh say u samayn kartaa siday wiil oo la hadli kartaa shuruucda waxa ka dhaxayn kara iyo sharciga ka dhaxayn kara muxuu yahay horta ilmaheenna waa inaan barnaa maxal asas waalidiin badan carruurtooda kalama sheekaystaan bal waxyaalaha qariibka ah oo yaabni waxaa kamid a waa carruur yar yar ah oo 10 jir ah markaad kala hadasho guur iyo xidhiidh iyo markaad kala hadasho waalidiinta qaar kamid a waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan ilmaha naga guur baa looga sheekeeya ayagoo intaa leeg subxaanaka yaa rab war haddaan ilmahaaga asagoo intaa leeg aadan waxaan barin iskuolkii waad rabtaa in laga baro iskuolkii waa laga baraa oo galaaskii baa laga baraa oo cajaladii baa loo daaraa oo wixii oo xumaantii oo faaxisho ah baa loo daaraa oo xiriirkii yacni xadaanada hoosaa lagaga soo bilaabaa yacni waalidiinta tarbiya xumada haysatay kamid tahay inayna carruurtoodaba marka horeba berinba xiriirka dhabta ah iyo maxaa banaan iyo maxaan banaanayn calaa kulli xaal su-aashani dhinacyo badan bay u baahan tahay in laga dul istaago waa marka koowaade horta su-aalaha qaarkood
hadda ka hor waa aniga baraarujiyey waxaad moodaa in qasab wax loo weydiinayo su-aalaha qaarkood waxaad moodaa inuu fasahaad ku jiro lianna ummadan fara badan ee su-aalaha soo dirsanaysa annagoo niyadooda iyo sharaftooda tuhumaynin haddana mararka qaarkood waxaad isleedahay kaalay masinadii baa la dhiiri gelinayaa oo la doonayaa in baab loo sameeyo ilmaha in laiska soo tuuro hadda gabadhan oo kale waxay ahayd intay shidhaado inay u tagto cidda ugu dhow oy mataqaanaa dhalo war sidan bay haysteen maxaa dhacay sidaasoo kaley ahayd laakiin su-aalaha qaabkan publiga ah noocan oo kale loo samaynayaa taxadarkooda in la yeesho mararka qaarkood waa muhiim laakiin haddanana waan ku qasbannahay wixii masaa'il ah oo aanu maqalno inaan waxaan faa'iidayn karna aan faa'iidayno biidnillahi tabaaraka watacaala gabaday dembi baad ku dhacday wal wiilka inkaadi marka kuwaad ola tegi doonaayo gabaday dembi baad ku dhacday zinadu dembi weyn weeye ilaahay agtiisa waa dembi weyn bay ka tahay allah wuxuu yidhi walaa taqrabu zina inahu kana faaxishatan wa maqatan wa sa'a sabiila zinadu waa waxyaabaha la galo waxa ugu foosha xun weeye nasliga nasalka iyo maxaa faraca waxa bedela waa zinada cudurrada iyo aydhisyada iyo cudurrada aan la garanaynin waxa bedela waxaa weeyaan waa zinada zinadu waa jariime iyo dunuubta la gala kuwa ugu waaweyn ee kabaa'irta abay ku jirtaa ilaahayna tabaaraka watacaala wuxuu la xidhiidhiyey shirkiga ilaahay wuxuu yidhi tabaaraka watacaala cibaadu araxmaan markuu ammaanayey tilmaamaha laga helay wuxuu yidhi waa kuwaan ilaahay wax kale la caabudin walaa yaqtuluuna anafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yajnuun waman yafcal dalika yalqa asaama horta waa inaad marka hore dareenta arrinta ayada rabbina u leeyay azani laa yankixu ila zaniya aw mushrika zani unbaa zani guursada sidaa daraaddeed horta zinada jariimadeeda waa inaan dareentaa kow marka kooda waa marka labaade ilmo un xalaal bayuusan noqonina ilaahay uurka ku beeray ayaad haddana iska soo tuurtay waa marka saddexaade kii ilmaha wacalka ah kugu rimiyey ama kaa dhalay ama mataqaanaa sababta kugu ahaa ayaad weli xidhiir la leedahay marka waxaa lagaa doonayaa hadday su-aashani ay dhab iyo daacad ay tahay oo ayna tashwiish gabdhaha muslimaadka la doonayo in lagu tashwiishiyo aynan ahayn oo balaayadan shabakadan lama arkayo ee nasaaro iyo shirki iyo shayaaiin oo fara badan baa wax kusoo dirsan kartay haddayna sa ahayn oo dhinaca wanaagsan aan ka fiirinayo horta waa inaad ilaahay u toobad keentaa ko laba waa inaad ninkaa xidhiirkiisa ka fogaataa tamaaman ninkaa xidhiirkiisa waa inaad ka fogaataa yaa ku ballan qaadaya intuu haddana waan ku guursanayaa inuu mar labaad xumaanti kugu samaynayo waa inaad habeeniya maalinba oydaa waa inaad ilaahay in badan u sujuudaa waa inaad ilaahay in badan u rukuucdaa waa inaad zine iyo xumaan marka lasoo sheego waa inaad nacdaa shaksigaana shaksigaad ugu necab tahay bini aadamka waa inuu kuu noqdaa muslimiintan ka hadlaya waa gaal madihi laakiin waa muslim caasi ah maxaa yeelay sabab wuxuu kugu noqday zinada iyo xumaanta ayuu kugu noqday ka fogow baan ku dhihi lahaa ninka hadduu rag ka soo haray xataa ka fogow limaada xataa haddaad isguursataan intaad toobad keentaan waxaa laga yaabaa inuu shaki maanta oo dhan taagnaado maxaa yeelay neenay idinkoon xalaal ahayn buu xidhiir idin dhex maray maanta o dhan marka shaki baa kugu taagnaanaya hadduu nin guriga soo agmaro waxaa laga yaabaa wuxuu samayn jiray buu garanayahay inuu kaaga shikiyo haddaba nin baa soo marayay wayna dhacdaa maalin walbaan darteeda gallaa sidaa daraaddeed tala haddaad iga doonayso horta ilaahay u toobadkeen kow zinada jariimadeedana ogo waa labo ninkaana xidhiidh ha la yeelanin intaad si dhaba u toobad keento oo jirkaaga asturato oo aad ragga ka fogaato oo aad xidhiidhka iyo shareecada islaamka xuduudeeda ilaaliso ninku ilaahay kuu qoray oo aad si quman oo sharaf leh aad ku guursato ood waalidkaa kala xidhiidha marka hore oo markuu ninku kula soo xidhiidhaba adada aabba iyo hooyaan leehaya la hadal ayaga oo marka ninku xaggaaba kaa soo galo gabadhiinaan rabaa inaan la sheekaysaan rabaa sharaf ilaahay ka baqa tabaaraka watacaala oo gabdhaha muslimaadka ah ku ciyaarina war haddaad gabar guursanayso si sharafle u guurso sidaad u jeclaan lahayd in walaashaa loo guursado
haddaad gabadha guursanayso oo shukaansanayso sida gabadha walaasha aad jeclaana in loo shukaansado u shukaanso laakiin gabdhaha muslimaadka ha ku ciyaarina oo gabdhanimadooda ha ku ciyaarina oo diintooda ha ku ciyaarina oo waraabaad tihiine waraabanimada ka daaya gabdhaha muslimaadka marka adiguna ilaahay u soo noqo oo ilaahay u toobadkeen oo gabadhan mar labaad god ha ku ridine hadday guur dhab kaa yahay taad ka jinaysatay intaad iska dayso mid yacni aadan aqooninba shukaanso ayaan ku dhihi lahaa hadduu guur dhab kaa yahay allah tabaaraka watacaala waxaan ka baryaa inuu ummaddan u soo celiyo dawlad islaama oo kitaabka ilaahay ku dhaqdo tabaaraka watacaala inahu waliyu dalika walqaadiru caleyh wallahu aclam بارك الله فيكم شيخنا إلهي ميزانك حسناتك هكوسارو سيدا وناكسنا مر والبو سؤالها وجباب جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق